بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhamaan waa idin wada salaamay khayrteeda meel walba aad joogtaan maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee aan codkeena aan u saari karnaa background music marka background music maxaa la yiraahdaa background music waxaa la yiraahdaa codka la saarayo muusikada ka hooseysa ayaa waxaa la yiraahdaa background music waa muusikadii caadiga ahayd balse waxaa ka sareeya mar walbo codka qofka hadlayo shakhsiga hadlaya ayaa ka horeeya maxayse faa'iido leedahay faa'iidada weyn ee leedahay waxaa ka mid ah in background musiga faa'iidada weyn ee leedahay waxaa ka mid ah in lagu qoriyo noise-ka faa'iidada labaad ee leedahay waxaa ka mid ah in codka ay qurxinayso hadda waxaan soo furanaynaa Adobe Audition keena ayaan soo furanaynaa marka sidaan kuugu soo baxo marka hore waxaad su'aal aad isweydiinaysaa mar walba khasab maya inaan cod duubo maya mar walba inaad cod duubto khasab ma aha waxaad soo gelin kartaa cod mar hore kuu diyaarsanay ayaad soo gelin kartaa codka hore oo kuu diyaarsanay waxaad ku soo gelin kartaa laba option ayaad ku soo gelin kartaa optionka koowaad inaad meeshan fileka aad tagto kadibna click aad ku siiso double click minute optionkaas waa optionka labaadna waxaa waaye inaad file tagto kadibna aad ka xulato import aad kasii xulato file aad kasii xulato shortcutkeedu uu yahay control I marka labadaas qaabood ayaa loo soo geliyaa marka aniga hadda cod nooma diyaarsano waan duubaynaa markaan iligtaan recordingka aan taabano marka hore waxaa iska fiirisaa sample rate-ka iska fiiri sample rate-ka markaad tagto waxaa lagaa doonayaa 44,100 inay ahaato waa midka ugu fiican channelkan waxaan isticmaalaa badanaa waxaan isticmaalaa stereo ayaan isticmaalaa meeshan file name-ka fileka aad duubi doonto magaca aad u bixinayso hadda su'aal aad isweydiinaysaa tiradan sample rate-ka maxaa loogu dhigay 44,100 maxaa loogu dhigay hertz waxaa loogu dhigay aniga ayaa kuu sheegi doono haddaad tagto iligtan oo audioga aad tagto oo computerka right click markaan siino kadibna aan kasii xulano open volume mixer markaan kasii xulano kadib optionadan ayuu ku soo bixinayaa kadib waxaan kasii xulanaynaa system sound ayaan kasii xulanaynaa markaan kasii xulano aniga optionka noo muhiimsan mar walba waxaan ku dubno waa recordingkan saadaada u jeedo microphone-kayga ayaan right click siinayaa kadibna properties ayaan kusii dhufanayaa saad u jeedo hadda windowgan kale ayuu ku soo bixiyay daaqadan micnaha kadib waxaa kasii tagaysaa advanced markaa kasii tagto waxaad fiirinaysaa maxaa ku dooran 44,100 hertz ayaa ku dooran marka sababtaas ayay ku imaaday tiradan in meesha la geliyo kadibna fileka magacaan u baxsanayna ayaan ku qoranaynaa aniga ayaan kaaga qoranaya maadaama channelka uu yahay kadibna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay khayrteeda meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena aadkii aad ku xiiso badnaay hadda saad u jeedo codka waan duubnay codkana saad u jeedo ma habaysno xoogaa yar waxaan isku dayayaa inaan habeeyo hadda saan u jeedino codka xoogaa yar waan yar habeeyey balaan dhegaysano marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay hadda waxaan ku saaraynaa marka background music seen codkeena aan ku saaraynaa marka hore cashirka waxaan ku shaqayn doonaa laba daaqadood ayaan ku shaqayn doonaa optionka ugu hore waa waveform optionka labaadna waa multitrack hadda saan u jeedino waxaan ku jirnaa waveformka ayaan ku jirnaa maxaa noo cadeynaya haddaan meeshan fileka agtiisa markaan tagno kadib waxaan noo viewska aan isticmaalayna hadda waa waveform ayaan isticmaalaynaa hadda haddaan rabno inaan tagno multitrack faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan in muusikada iyo codka aad dul saari karto ayay qaabilsan tahay waana qayb aad u baaxad weyn kadibna waxaan iskaga qoranayaa magac bixinaya hore ayuu u jiray ayuu leeyahay kadib malahan ku fur saad u jeedo waa kana multitrackan waa kana waveformkana waa kana marka hadda difference ayaa u dhaxeeyo marka hadda multitrack ayaan ku jirnaa kadib waxaan sameynaynaa codka aan duubnay ayaan soo jiidaynaa kadibna waa kusii deynaynaa
saan u jeedano hadda waan soo gelinay kadibna waxaa naga dhiman inaan background music aan soo gelino hadda background music waan soo gelinay kadibna waan soo jiidaynaa kadibna qaybta hoose ayaan kusii daynaynaa kadib hadda saad u jeedo muusikada wax badan ayaa naga qarsan si aan u aragno waxaad tegaysaa zoomingkaas kor layerkaas ayaa tegaysaa kadibna double click ayaa ku siinaysaa markaan ku siino hadda waxaan ka jaraynaynaa kaliya qaybta kaliya uu ku fiican yahay ama waa soo jiidaysaa markay falaartaas guduud ay kusoo baxdo ilaa iyo videogaaga meeshuu ku egyahay codkaaga meeshuu ku egyahay ayaad sii geynaysaa hadda saad u jeedo codka waa kana muusikadana waa kana marka hadda khalad ayaa jira khaladkaas ayaan idin sheegi doonaa bal dhegeysta hadda dhammaan waa idin wada salaamay akhyaarteeda meel walba joogtaan hadda saad u jeedo muusikada iyo codka mala kala garanayo sababta keenayso waxaa volumeka codka waxaa sareeya muusikada ayaa sareyso markaasaan muusikada aan u yarano waxaan tegaynaa haddaan zoom aan soo dhano linekan yellowga ah ayaan click ayaan ku siinaynaa markaan click aan siino kadibna hoos ayaan usoo jiidaynaa markaan hoos aan usoo jiidno ayaan deynaynaa hadda saad u jeedo hadda codka sidii hore ma ahan bal aan dhegeysano marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay akhyaarteeda meel walba joogtaan kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena aadkii aad ku xiisa saad u jeedo codka iyo muusikada waa isku dheelitiran yihiin marka sidaas sahlan ayaad u saari kartaa waxaa su-aal kale aad isweydiinaysaa in qaybtee aan export aan ugu bixinay haddaan sameeyo sidaan oo kale hadda waxaa nagala rabaa inaan ku celino multitraga mar walbo exportiga kaama yeelayo sababtay tahay fileka active ma aha aan labadan aan ugu celino waveformkan saan ugu celino waxaan sameynaynaa kaliya inaan multitrack aan ku dhufano qaybtaas menus aan ka doorano kadibna max down aan ka doorano aan kasii xulano intro season aan kasii xulano kadibna saad u jeedo videoga iyo background codkii iyo background muusikadii waa kana asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan hadda waa kana sidaad ugu jeedo kadibna export saad u dhahdo kadib file ayaad leedahay kadibna export kadibna file ayaa kasii xulinaysaa saad u jeedo formatka waxaad ka dhigi kartaa mp3 mp2 audio mp3 ayaa ugu caansan kadibna fileka meeshaad rabto ayaad kasii dhiganaysaa waana mahadsan tahay daabashada videogan fadlan haddaad kanaalkeena aad ku cusub tahay subscribe dheh gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horey mar walba aan cashir soo gelino laagna dheh sharana dheh waana mahadsan tahay daabashada videogan waa mar kale iyo cashir kale oo xiiso badan sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu